السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابة غالية مركز joogtaan kusoo dhawaada wadajir podcast. Waana goor jaamacad dafaax. يعني اسمه شبيب. Barnaamijka caawa wuxuu ku saabsan yahay dhaqaalaha qoyska iyo sidii loo maareyn lahaa. sidii loo maamuli lahaa. Aad caawana barnaamijka wariya. adiga caawda diin kusoo dhawaada. Aynu wariyeenoodan. maadaama adiga in badan lagu warinimada ku fiican tahay. tartan ma hoosta kaaga jira. Wali wareegtaa. Wariyeenooda ugu challenge kareynaya. horta waxaad noo sheegtaa marka ugu horeysa si dadku u fahmaan maxaa laga wadaa yani dhaqaalaha qoyska miyuu ka duwan yahay dhaqaalayaasha kale amba sida kale loo maamulo lacagaha kale ee jira. waa su'aal aad wanaagsan. dhaqaalaha qoysku wuxuu horta la dhigan yahay waa qof business maamulayo oo kale. waa businesska marka waa dhaqaalihii lagu maamulayay qoyskaas, dakhligii wixii soo gelayay iyo wixii ka baxay, income-kii iyo expense-kii. marka sidii loo maamuli lahaa qoyskaasi dhaqaalihiisaas uu ugu noqon lahaa mid baahiyihiisa oo dhan daboola, waxyaabo kaloo dheeraadana ay uga qabsan karaan. waxay u baahan tahay in cilmi iyo aqoonteeda loo lahaado oo lagu maamulo. okay yani sidee reerku ay budgetkooda miisaaniyadooda ay u maamuli karaan familigu? let's say oo kale biiska haddaynu kasoo bilaabno familiga 2 qof ka kooban intayna ciyaarta dhabka ahay bilaabno. Absolutely. horta waxa ugu muhiimsan qodobka koowaad ugu muhiimsan dhaqaalaha familiga marka la eegayo waxa weeyaan in budget la samaysto. budgetkuna waxa weeye inaad u qorshayso dakhligii kusoo gelayay, meelihii uu ku baxayay inaad sii taqaano marka hore, oo aanay markii dakhligu kusoo galo aanu kaa kala yaacin, hadhowna aanad waayin waxaad ku maarayso. marka hadduu qoysku 2 qof yahay iyo hadduu hal ka badan yahay, number 1 muhiimad waxa weeye inaad budget samaysataan. budgetkaasoo ka koobnaanaya kharashaadka waaweyn sida ay ugu horeeyaan kirada oo kale, cuntada, lightka, waxyaabaha joogtada ah fixedka ah. waxna waxyaabo fixed ah, waxyaana waxyaabo unexpected kusoo kordha. marka inaad kuwa portionka qayb ka mida inka loo qorsheeyo, qaybaha kalena loo qorsheeyo waxyaabaha kale ay ka midka yihiin. dadku baahiyo badan bay leeyihin. markii waxyaabihii basic ahaa aad ku fargaraysid, waxyaabaha kale ay idiin saamaxayso in entertainment oo kale loo qorsheeyo, hadday idiin saamaxayso in magaranaysaa waxyaabo badan oo kala duwan. marka basic inkasta mastahayn hadda wiilkii mar loo baxday way fiican tahay waxyaabaha ama wiilka ahaata ama bil ahaata kolley in yani ay dadka familiga ay u balangareysnaato mar ay 2 qof ay waqti marka qodobka koowaad waxa weeye inaad haysatid must budget oo aad income-kaagana garanaysid maxaa kusoo gelaya, imise madad wax kaa soo gelayaan, kadibna aad garanaysid meelihii wax kaaga baxayeen, kadibna aad sidaa u kala qorshaysid sida ay kuu qoran yihiin. muhiimadda waxa weeye inaad qoran yihiin oo laisla yaqaano, ay already wax balangareysan yihiin. budgetkana la raaco aan noqon mid dhabarka laga tuuro marka inta u horeysa. dadka inta badan waxa dhacda inta basic khasabka marka la bixiyo inta kale inay iska raaco. dadkeen waxay u badan yihiin dad intay wax balangareystaan haddana balaankii ficil ku darin. qodob number 1 you must have budget inaad haysatid. budgetkuna waxa weeye qorshahaagii bisha wixii aad isticmaalaysay oo dhan aad waxba ka reebin. hadday ku jiraan inaad waxyaabo dheeraad dhar soo iibsanaysid, hadday ku jiraan in meel loo baxayo, hadday ku jiraan waxyaabahaas oo dhan oo la qoray oo la dejinayo. sax wax walba inay ku noodkaystaan. marka number 1 kaas familigu markuu 2 qof yani kaliya ay isqaba yahay iyo markuu carruurta yahay dabcan way kala duwan yihiin, laakiinse sidee uu saameynaya dhaqaalaha qoyska? wuxuu saameynayaa horta mar walba carruurtu amba way soo socotaa oo waa mar dil la rajeynayo, amba waa mar aad haysid oo aad ay joogaan. marka ay joogaan dee kharashaadkooda bay iyagu yeelanaya, oo ilmihii yaraada kharashaadkiisa wuu la soo kordhay, caanihiisii iyo waxyaabihiisii kala diaperskiisii, cuntooyinkiisii kala duwan, waxyaabahaas oo dhan la soo kordhay everything. markaasa iyaduna haddana ay tahay
qodobkii labaad baa ka soo gelaya oo ah kii hore budgeting baa kala waa saving. Savingkuna aad buu muhiim yahay siiba haddii aad caruurta meesha timaado sababtoo ma ogaan kartid xilliga emergency ay iman karo caafimaad loo baahan karo waxyaabo yar ay soo bixi karaan marka income-ka qayb ka mid yihiin inay iyaduna saving haato inta badan waxaa la 10% oo kale ugu yaraan inuu qofku save gareeyo ugu talagalo waxyaabaha emergency-ga oo aan la taataaban bil walba. Marka savingkuna waa qaybta labaad ee aadka muhiimka u ah inaad save garaysid income-kaaga qayb ka mid wax yarna ha ahaatee. Savingkuna dadku waxay aaminsan yihiin waxa soo hara in la save gareeyo inta badan. Marka haddaad istiraahid kharashaadka kale oo dhan bixi waxa soo hara save garee. Waxba ma soo harayaan. Marka u horeysa waa inaad ka jirtid automatically. Marka dadka kale meelaha dibadda jooga account baa lagu shubaa ay ku shubtaan marka waxaa jira si way automate gareyn karaan wax walba oo marka hore kusii buuxin karaan intaa saving ka dhigaan intaa investment ka dhigaan intaa kharashaadkii dadkeena localka ana inay mala siyaabo kale de savingka traditionalka isticmaal xagbado kale sidoo kale waxaa jira iyaduna shirkadaha qaar leh in aad lacagta xidhi kartid qayb ka mid ah lacagta يعني مدة كحرس سنة ذو استعماله مركا هوبك قفل وهبك وفضل حسب كرين كرو حسب كريو دون اسكف جي سنة العكس عن استعمال. سؤال شكل مهم بقى أنكويتيني waxay tahay dhaqaaluhu yani arinta dhaqaalaha ee guriga marka laga hadlayo ma go'aan waxa weeyaan labada qof yani dhinac ku xidhan amba odayga reerka amba islaanta guriga mise yani waa inay labada qof ka wada tashadaan oo laga wada discuss gareeyo. qodobkaas waa qodob aad muhiim ah midda qoyska la yidhi marka haddii qoys la yidhina qofkii waa laga soo baxay xaaladda qofka laga soo baxay qof markuu singleka yahay dee gurigiisa joogo dhaqaalihiisa gaarka u maamulo karaa laakiin mar haddii qoys la noqday dhaqaalihii wax sheeri dhawey marka budgetka la dejinayo in la wada fadhiisto oo la isla dejiyo weeyaan because budgetka meelooyinka kala imanaya qayb waxaa ka mas-uul noqonaysaa xaaska wasiirka arrimaha gudaha waxu maamulaysa marka waa arrin sheeriga in la isla fahansan yahay la isla meel dhigo oo si transparent loo dejiyana waxay ka qayb qaadataa in reerkaas xagga dhaqaalaha uu ka deganaado oo budgetkaasna uu noqdo mid shaqeeya marka in aan waxba la kala qarqarin miiska lasoo wada saaro waxba kadibna la qorsheeyo la yidhaahdo maxaa halkan ku habboon maxaynu saaf garaynaynaa maxaynu waxaa ku bixinaynaa ayaa habboon. sheekan soo xasuustay markaan digrigeygii diyaarinayay ayaa aniga accounting baranayay kadibna inamadii kalaaska nala dhigan jiray ayaa waxaan ku dacaadeyn jirnay inamada accountingka bartaa hadhow markay guursadaan waxay noqdaan inamada yani gabadha u xisaabiya oranaya labada xabbi tamandada qodobka sheexa maajiga aniga dhaqaalaha dhigto saasana lagu dacaadeyn jiray waxa dhaqa economicsku hadhow xisaabin doonta man xisaabiya hadhow kamarda dawlada ka shaqeeya hadda xisaabtu waa wata dee aan dhiirigelin kala wado weeyaan marka waxaana la yidhaahdaa moogtahay even gabadha dee hablaha qaarna waa habla iskaga dhashay maasha allah dhaqaalaha iyo dee inay wax isku dardaraan laakiinse caadiyan waxaa la yidhahdaa at least inay gabadhu markay dee guursanayso waxyaabaha guurka shuruudaha guurka marka loo diyaargarooy waxaa kamid ah inay gabadhu at least yani wax ka taqaano dee sida wax loo maamulo. marka qodobkaas qodob aad muhiima waxaa kusii xigi doona oo isaguna saving haddaad aragtid waxa meesha ku xigta aan iyaduna ka marnayn investing marka haddii idiin saamaxayso inaad qayb ka mida dhaqaalihii iyadana waxaad ugu tala gashaan savingkii ka mida in mustaqbalkaad ku maalgashan kartaan wax oo aad isku biirin kartaan si markaa ay amba business loogu furi karo oo waxyaabo kale dee loogu kubsan karo.
maogtahay dadkeenu yani markay arooska yihiin ama markay guursadaan waxa ugu horeeya ku fikiraan waxa weeyaan guri iyo gaari inay iibsadaan arrintaan iyadan maxaad ku dari lahayd? wallahi horta inta badan waan aragnaa qofku inuu markaba arrimaha iyadoo lagu fikirayo in dadka qaar diimadooda inta qaataan oo kale guri oo kale amba gaari oo kale weliba guriga gaarigooda kala sokeyn in gaari deen loo qaato oo kale marka qodobka weeyaan isaguna spending in waxyaabaha spend garanaysa ay noqdaan waxyaabo qorshaysan oo waxyaabaha la yidhaahdo impulsive purchasing la iska ilaaliyo inuu qofku waxaan ugu talagelin oo qorshaha ugu jirin intuu suuqa iska tago iska soo xamaasho dumarka ka badantay malaahi ya maogtahay markaad yani bishii lasoo adeegayo oo kale waxaan doonaynaa hablaha inta uga faa'iideeyo marka bishii adeega lasoo iibsanayo oo kale maalinta waxaan doonayo ana sii qoran waxaan sarkaano meeshii oo dhan soo wada qortay markaa sii qoratid marka hore exactly sii wada qorata waxaad u baahantahay haddii kale wax kasta waxaad oranaysa wana baana karo even waxaad rabadaanta xataa dhawooyin baad oranaysa kan wallahi rabadaantii hore aan u baahnaayeen waaye marka horta mindsetkaaga mar walba inuu ahaadaa lacagtaadana aad shaqaysatay dadkan oo dhan meelahan supermarketada u furtay inay kaa qaataan ayaa loo furtay marka wax aanad rabin waa inaanad isku gelin marka taa dad weydiisay horta dadka qaarna way kala hobi duwan yihiin laakiin anigoo fikir ahaan markaan eegayo qofku inuu guri markiiba qaato amba gaari waxaa ka fiican hadduu wax safe garaysto amba organisa inuu business iyo waxyaabo noocaas oo kale u galo suu qof xoraa u noqdo dee businesskuna hadduu kuu hirgalo guriga lababa siyaro fudud ayaa ku dhisan karta halka laga yaabo 4 sano 5 sano inaad deyn madaxa kula jirtid organisa qof walba siduu prefer garaynaya ayay dee tahay laakiin waxay la tahay in marka hore dadka businesska jecel ay businesska horeysiiyaan kaasaana wax u dhamay qodobka deyntuna aad buu muhiim yahay inaanad qaadan deyn aan daruuri ahayn amba aanad garanayn meesha aad ka bixinayso deyn waad qaadan kartaa laakiin waynaanay soo saameynayn incomekii ama noloshii deyntaasaad ku gudi lahayd ay already kuu qorshaysan tahay monthly meesha laga keenayay aanay nolosha kalena aanay saameyn dad afar garan kartana aanad qaadan badan dadku badan iyagoo deyn ku jiray baa qalqalaan kharashaadka aroosku deyn way jira kadibna intaa way dhacdaa marka qaar laakiin inta badan in la iska ilaaliyo ayaa qurux badan haddaanay deyntaasi ahayn inaad u qaadatay business kadibna businesskaas isagu soo saaray deynta isagu soo celinaya productive waayo haddii kale yani markii pointkan u soconaana waxa weeyaan si still yani khilaafka loo yareeyo labada qof isqaba ka dhexeeya pointkan u soconaana waa kaas marka labadii qof haddii dee qofkii welibana badanaa dee mas-uuliyaddu xagga dhexay saaran tahay wiilka so qofku dee isagoo deyn lagu leeyahay marnaba ma faraxsanaanayo pressure baa saaran colays baa saaran markaas waa inay yani qofka gabadhuna haddii qofkana dee aanu awoodin waxaanu awoodinayna culays ku saareen so labadii qof markii isguursanayeen waxay awoodaan ay ka wada hadleen ay ka wada discuss-gareeyeen waa inay hadhow tolana gurigooda la imaadaan without iyadan labada dhinacba wax pressure aan laysa saaran qodobkaas weliba waxa keenaa in marka hore aan si toosa looga wada hadal ninkuna inta badan raggu ma jecla inay ka warramo arrimaha dhaqaalaha khuseeya isaga hadhowna dhib ay ku noqota wax laga yaaba haddaanad dee xaaladii ka warramin waan isla ogeyn in wax badan lagugu tuhmada markaa expectationka uu bato gabadh inaad tirahdo dee muxuu keeni waayay wuu haystaa kadib halkaa muran ka yimaado markaa intii lagu tuhmi lahaa waa in horta waxaa bedka lasoo dhiga kadibna laisla qorsheeya marka qofkii dee ma imanayo tuhminaya qorshunbaa imanaya iyo in laisla qorsheeyo haddii kale dee haddii kalena waxaan aad dawladda barnaamijka wixii kan yiraahdo dadka soo dhigto inaad haysid wax walba inaad soo dhigtid exactly su-aasha kale ee daruuriga iyadana waxa weeyaan kharashka maalinlaha maogtahay in kharashka bishii dee waa wax already laysla yaqaan hadday kirada tahay hadday biyaha tahay hadday leerta tahay laakiinse waxa ugu mushkilada badan ugu kharashka badan loona haysanayna wax yar tahay waa kharashka maalinlaha
marka kharashka maalinlaha sidee loo maareyn karaa? Horta kharashka maalinlaha waa kharashaadka yaryar ee adigoo aan tabayn aad bixisid kadibna wuu isbiirsanayaa hadhow wax weyn ayuu noqonayaa markaad bishii dhammaatad xisaabsan waxaad u budget garaysa buu kaa goynaya marka number one in tracking aad ku samaysid weeyaan aad la socotid maalin walba waxan aad kharash garaynaysaa ma la aleen garaysan yaho ma la socdaa budgetkaagi haddaan la socon doo inaad yaraysid marka aad ogaatid maxay kaaga baxayaan waxan transportation baa ma waxyaabo kaloo purchases baa machine baa dabadoo qabatay wixiiba iyo taymu marka waan tracking samaysid kadib marka aad ogaatid aad dib ugu soo noqotid budgetkii saxda ahaa. haddaan ana ku darsado dhinaca dumarka waxaa jira dadka qaar maalin kasta adeegta iyo dadka qaar bishii 2 jeer adeegta iyo dadka qaar wiigiiba adeegta hal mar intaba waan tijaabiyey so mar walba waxaa ka fiican qofku inuu yani hadduu awoodo bishiiba hal mar laakiinse waxaa fiican bishiiba 2 mar oo kale qofku markuu adeeganayo oo de wixii waxaad kusoo qaadanaysaa oo kale jumlad ahaan baad kusoo qaadanaysaa wax walba way ka jabantahay 100%. adigana de tacabkaa kaa yaraanaya lacagtii maalin kasta sariimada tagtana am 100% sure waxaad u socotay shallaabkeed ba soo qaadanaysaa so marka waxaan kula talin lahaa qofku wiigiiba yani 2 jeer maximum inuu iska soo adeegtaa u fiican laakiinse maalin kasta adeegga qofka inuu ku daalayaa dee waxaan banaankaaga ahayna waa iska soo qaadanaysaa marka la tegayo adeegaad doonanayso amba waxaad doonanaysid oo u socotid waxa fiican inay kuusii liskaraysnaadaan si waxa extraagaad iska afford garaysaha kole haddaan dumarnahay anagu alaabta dayada ku yeedhanaysa daruuba jeedin wax ku yeedhanaysa so wax walba inay lister kuusii ahaadaan ay kuusii liskaraysnaadaan. maxay kale ku dari lahayd? waxaan ku dari lahaa qofku si uu budgetkiisa ugu socdo waxaa u baahan yahay in meelo badan kharashaad ka dhimo waxyaabaha aan daruuriga ahayn marka markasta inaad isku daydid horta dadka taajiriinta caddaankaaba ugu intixaansan inta badan dadka taajiriinta dadka waxay ka aaminsan yihiin dar lacagta iska kala daadaadiyo meel walba tuuro laakiin dadkan waxay ku taajireen waxa weeye marka hore waa dad budget samaystay kharashkooda u diiday dadku inay lacagtooda si yar uga baxo si dheeldheer marka dadka lacagtooda si dheeldheerana ugama baxdo yaaryaarna ugama baxdo rafaad waxa la yidhi lacagta marka qofka si fudud kusoo gasho si fudud looga baxo marka mindsetka waa in la bedelo inaad lacagtaadani aad iska bixbixisid inaad wixii daruuri ahaa aad samaysid comparing badan aad samaysid haddaad purchase weyn samaynaysid wax iibsanaysid meelo badan eegtid oo quotationo badan eegtid marka wax qiimihii macquul ah si aad u qaadan kartid marka waxaad dhacaysa inaad budgetkaagii heshid saving heshid investmentka heli kartid waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid ah inaad inta badan aad akhrisatid buugaagta dhaqaalaha ka hadlaya sida wax loo soo gareeyo sida wax loo maalgashado sida budget loo sameeyo qof kastoo bartay amba isku taxallujiyey noloshiisu inay wanaagsanaato mooye ma xumaato bes lacagtu waa wax ay tahay in lagu barto iskuullada oo very very muhiima haddii kale qofka noloshiisu inay hoos u dhacdo mooye kor uma kacso haddaanu money managementiga qofku aanu garanayn marka in iyadana meelaha laga raadsado aqoonta lacagta sida loo maamulo sida loo maalgashto lacagta sida loo safe garaysto waxyaabahaasoo dhan waxa ay ka anfacayaan in keliya maaha intii yaradad maalinaysa aad wax weyn ka samayn kartid oo aad qorshayaal badan ka samayn kartid marka taladeeda waxa weeyaan aqoon dheeraada hala raadsado budgetka iyo qorshahaasoo dhanna hala dejiyo markay noqoto family financekana same page ha lahaado wiilka iyo gabadhu ha ka wada socdaan ha isla dejiyaan si friendly ha loo dejiyo ha loo qorsheeyo ninkuna yaanu odhanaan damaan ninka guriga waaniga damaan hadda tirahda oo waxba ma sheegaya de you are damaan sax laakiin waxay kugu keenaysaa expectation kuna oo kadib wax badan oo aan dee keen marka lagu badanoo lagugu tuhmeeyaa
فوينت كنت دي هديك بوين ضدك سودي نعم عادية يعني nolosha wax walba la isla discuss gareeyana waa yani kalsoonidii basement bay kor u qaadaysaa in same page dii la wada ahaado meel la wada higsado mustaqbal la wada higsado wax la wada qorshaysto marka inta yare guriga keliya maaha waxaa dee goals baad samaysanaysaa financial goals mustaqbalka waxaan samaysanaa ma guri baan dhisanaa gaari baa la iibsanayaa qoys kastaaba ay qorshayaal lahaadaan maxaa la yidhahdaa dhaqaale hadday bilo noqoto iyo hadday sanadla noqotaba iyo hadday mustaqbal noqotaba iyo markay caruur meesha timaado markay iyagu qoys cusub yihiin caruurtooda xataa dhaqaalahooda waa inay kasii fikiraan hadday waxbarashada noqoto dee arsaaqada ilaahayna waa xaggayga nin walba arsaaqadiisu wataa laakiinse haddana in balaankeygii la lahaado aad bay daruuri u tahay ilmaha yar u dayacmin maxaa la yidhahdaa idinkuna dee wax isku buuq iyo dagaal idinku iman absolutely mar walbana waxaad ka fikirtaan sidii incomekiinu meelo kale ka kordhi kari lahaydeen oo mar walba inta aad haysaan in ka badan aad u heli kari lahaydeen hadday ganacsi tahay iyo hadday waxyaabo kaloo ay tahayba insha allah dhammaantiin guul baan idin rajaynaynaa reer qurux badan mustaqbal ifaya iyo guul insha allah haddaad mahadsantihiin fadlan subscribe ha ilaawina maalinta dhaweed subscribe inaan yeelanaana ayaan iska daynay idinkuna waa iska diiseen subscribe saara fadlan subscribe saara anaga motivation inoo tahay dhiirgelin inoo tahay iyo like maalintii u horeysay 80% oo anigii lahaa ma subscribe garan imika soo fiicnaatay 70% bay mareen wale inaynu 40% gaarsiina qof kastoo meesha soo booqdaa subscribe saara anaga dhiirgelin inoo tahay qodobada aad jeceshihiin inaan ka hadallo commentka ku soo qora aad baanad mahadsantihiin habeen wanaagsan